gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir mudane Cumar Cabdirasaaq Xuseen ayaa caaw ka qayb galay shirka amniga degmada Yakshiid oo ay xaadir ku ahaayeen maamulka degmada iyo saraakiisha ciidanka amniga. Shirka amniga ayaa intuu socday waxaa aad looga dooday isbeddelka amni ee ka jira degmada. Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa warbixinada quseeya xaaladda amni iyo midda nololeed ee degmada Yakshiid waxa ay ka dhageysteen mas'uuliyiinta degmada iyo saraakiisha ciidanka amniga kuwaasi oo soo gudbiyay caadooyinkii ugu dambeeyay oo ay ciidamada ammaanka kaga hortageen falal lidii ku ah xasuunida degmada. Sidoo kale mas'uuliyiinta degmada ayaa tilmaamay in ay aad u wanaagsan tahay wada shaqeynta ka dhaxaysa maamulka degmada iyo shacabka ku nool waxaa kala duwan ee degmada Yakshiid. Shirka markuu soo ilaaday ayaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxa ay kormeereen waaxaha kala duwan ee degmada Yakshiid iyagoo u korgalayay xaaladda amni ee degmada. Waxay sidoo kale la kulmeen ciidamada ammaanka iyo saraakiishooda iyagoo ugu dambeyn booqday saldhigga degmada Yakshiid halkaasi oo adeegyo kala duwan loogu sameeyay shacabka degmada. Kormeer kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Yakshiid Cabdiwali Cabdullaahi Maxamed. waxaa caawa inoo qabsoomay shirkeeni amniga degmada Yakshiid waxaana noo shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir. waxaa sidoo kale nala joogay xogeyaha gobolka Banaadir oo asigana goobjoog ka ahaa shirkeeni. kadib shirkii markuu noo ilaadana waxaan booqasho gudoomiyaha xogeyaha iyo dhammaan maamulkeeni aan ku soo marnay xarumihii ciidamada amniga iyo maamulkaba ay joogeen oo aan u kuurgalnay sida ay u shaqeynayaan iyo waxa ay qabanayaan iyo sida bulshada loogu adeegayo. waxaana si wanaagsan noogu soo gabagaboobay booqashooyinkii ama wareegii aan ku soo maraynay xarumaha ay joogeen ciidanka. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax waxa uu tilmaamay in la joogteyn doono isla xisaabtanka ku aadan amniga magaalada Muqdisho. annagoo ka duulayna amarkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee ahaa si loo dardargeliyo howlgallada iyo howlaha amniga ee degmooyinka ka socda in kormeer iyo roondo joogta lagu soo biyo maamulada degmooyinka. habeenadii la soo dhaafo dhan waxaan wadnay roondooyin iyo kormeero joogto ah oo aan ku tageyno qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir. caaway waaxda degmada Yakshiid aan joognay maamulkeeda degmada iyo qaybaha kala duwan ee waaxaha ay ka kooban tahayna waa soo marnay. waxaan idinku boorinaa markana shaqada haysaan si laba jibaartaan sidaan u dardaaranayba kormeerkana uusan ahayn wax caawa ku eg hore waa idinkugu imaan jiray. waxay ii sheegteen culeysyadii berigaas jiray inay hadda wax iska bedeleen haddana loo baahan yahay culeysyada kaloo jira inaan la xalino. culeyska iyo cabashada iyo waxa aad sheegteen waa dhageysanay waxna waa ka qabanaynaa hadduu alla idmo ka maamul ahaan. maamulka degmadana waa ku boorinaya shaqada ay hayso. shacabka degmada Yakshiid waxaan ka codsanaynaa inay idinla shaqeeyaan dulqaadna ay u yeeshaan culeysyada imaanaya wax aan loo sabrin ama culeys aan loo sabrin kama gudbeyno.